Bismillahirrahmanirrahim. Khayrta kusoo dhawaada qaybteeni tobanaad ee programming using Python. Qaybtan waxaan ugu qaadan doonaa input function iyo if statement. Marka input function waxay qabanayso waxa waaye userka in laga soo qaado wuxuu soo geliyo kadibna shaqadii loo qaban lahaa loo qabto. Marka tusaale oo kaleeto anaga waxaan soo qaadanay variable aan samaysanay waxaan ku shubaynay numberkaas marka ina adiga bedeshid ma ahane si kala ma ku bedelmayn. haddii aan u baahannahay mar walba oo programka la rangareeyo in uu qofka userka ah wuxuu rabo soo geliyo waxaan isticmaali doonaa waxa la dhahayo input function. input markaa dhahdid inputka marka koowaad dhahdid input function waxay ka qaadayso waxa waaye string. marka aniga waxaan u baahan karaa data type kala duwan sida integer, float iyo kuwa kale. marka asaas rabo waxaan u baahanahay inaan ka hormariyo ayada laftirkeeda. haddii aan rabo integer oo kaleeto inaan inti dhaho kadib aan bracket furto kadibna inputkii aan soo celiyo. input function ka waxay qaadataa stringigaas waxa waaye waxay informationkii aan meesha soo gelin lahayd in lagu tilmaamo ama lagu dhaho waxaa soo geliyo kaleeto. tusaale oo kaleeto enter haddii aan dhaho an integer qofku fahmayo marka meesha waxa la soo gelinayo saas ay u shaqeynaysaa. marka anaga input function hadda muhiimadda aan ka leenahay waxa waaye in aan if statement-iga ku dhex isticmaalo. sidaas darteed hadda input function-ka waxaa ka soo qaadi doonaa waana soo daawici doonaa. okay project-iga aan xirto print aan dhaho print markaa dhaho print waxaan soo print gareynaa userka waxaan ka soo qaado oo ah numberkay rabtaa noqoto. marka waan gareynay kadibna waxaan soo qoray enter an integer number soo geli numberka rabtida ay gelin kartaa 23 aan geliyay enter markaan dhaho asiga soo daawici doonaa 23. marka saas ayay u shaqeysaa input function. marka anaga waxaan u baahanahay input function ma ahan qaybtan waxaan qaadan doonaa if statement hordhaca. marka input function xoogaa waa hal function oo la isticmaalo in userka laga soo qaado xogta uu asiga soo gelinayo. intaas nooga ekaato waxaan u gudbaynaa if statement. marka if statement decision structureska ama decision makingka waxaa loo qaybiyaa 3. kan koowaad oo ah if statement, kan labaad oo ah if else statement iyo kan saddexaad oo ah nested if statement. marka kan koowaad aan qaadan doonaa waxaan uga baahanaa horta waxaan uga baahannahay markii conditionada qaar laba condition oo kaleeto in isla fulisid ay rabtid dii oo labada condition mid in la qabto midka kale dib loo dhigaa rabtid waxa waaye in la isticmaalo if statement ama else if iyo nested if. marka kan ugu soo horeeyo if statement aan qaadano tusaale oo kaleeto hadda waxaan dhihi doonaa waxaan noogu shubtaa intigii haddii aan soo qaadanayno integer ah kadibna waxaa dhahdaa input kadib waxaa dhahdaa enter a number less than 10. marka uu qofka soo geliyo waxaa la jeegarayn doonaa in numberkan uu ku yahay 10 iyo inka. marka sidee inuu ka yaryahay inkale ku ogaan doonaa waxaan ku ogaan doonaa if statement sida u shaqeysa waxa waaye in la qoro marka koowaad if kadibna conditionkii la qoro kadibna ay ka dambeyso colon markii hoos loo soo degan indentation uu sameeyo programka adiga isticmaalaysid haddii kale in aad u samaysid ay noqonaysaa. Python waxay isticmaashaa indentation waxa la dhahayo halka luqadaha kale ka isticmaalaan waxa la dhahayo curly brace. okay haddii ay ka yartahay 10 waxaa ii soo daawacdan leeyahay
a laftigeeda isoo daawac kadibna waxaa dhahdaa ayadii is less than 10. marka ifta waa isticmaalnay, if kale haddana isticmaali doonaa si aan haddii uu ka wen yahay aan u qabanno iyo haddii uu la egyahay 10. okay, if aan dhahno ama tusaale kaleeto ayada aan soo goobiyeysano calaamada bes aan bedeli doonaa, soo koobiyeysanay waxaa noo dhiman laba condition xiga waxaa waaye in uu la eg yahay. haddii numberkii uu la eg yahay waxaa leedahay waxay la eg tahay 10. marka meeshaan less than ah equal aan ku bedelno, kadibna meeshaan less than aan dhahno greater than, kadibna calaamadan aan dhahno greater than. programka aan galino marka okay, enter a number less than 10 ayaa lagu dhahay. waxaa soo gelisaa number ka yar 10. haddii aan soo geliyo 3 way ka yar tahay, waxaa la dhihi doonaa 3 is less than 10. taasaa lagu sheegi doonaa. haddii aan rabo ka waran inuu ii sheego haddii uu ka weyn numberkaa soo geliyo 10 iyo haddii kale number ka weyn aan soo geliyo 12 way ka weyn tahay 10 caadi ayuu sheegay. okay, haddana aan dhaha number la eg 10 la ekaan karto wax kale ma la eko 10 aan soo gelino 10 is equal to 10. okay, if statement qaabkaas ayuu shaqeysaa. halkaas ayay noogu eg tahay qaybteennii 10aad ee programming using Python.